ilmihii xalay saqdi dhexe ayaa gabadhii ilaahay noo soo celiyey looyarka ismaaciil oo maasha allah nin dhalinyaro ah aad buu u dadaalay jaaliyaddu waa dadaashay guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed xasan cumar oo xaqiiqatan yacni ah nin jaaliyadda aad ugu dadaala oo ah isaga iyo looyarka aninkana waa labada nin aad ugu dadaasha xasan cumar qofka lama xaqiro bani aadamka ah xabsiyada ninka taagan waa isaga guryaha hooyooyinka laga saarayo qofka taagan waa isaga qofkii waa argagixisa la dhaho qofka taagan oo qof kasta u imaanaya waa isaga wadaadkii la xiro qofka u taagan waa isaga laakiin jaaliyadii waa burburtay jaaliyadii waxay ku burburtay qabiil bay ku burburtay qabiil baan ku burburnay waxaan gaarnay in East African Community jaaliyad la yiraahdo oo Ethiopian ah inay ku shaqeysato magaca jaaliyadda Soomaaliyeed kadib markii jaaliyadii Soomaaliyeed qabiil ay kula tagtay xagga reer fulaan xagga reer hebel ninka reer hebel laga daayay reer hebel xagga u baxeen reer hebel xagga u baxeen sida ka jirta Yurub oo kale meel walba waa lagu baabaa marka yaa victims ah balaankii iyo dumarkii iyo carruurtii baa victims marka dadka sharcigu difaacay waxa kamid ah carruurta marka waa la difaaca walaalayaal wadanka kan Mareykanka inaan carruurteena inaan difaacno waa loo baahan yahay oo qax aan ka dayno oo nabad darrada aan ka dayno oo qabyaaladda aan ka dayno oo hubka aan ku xambaarayna aan ka dayno oo ilaahay uga baqno subxaanahu wa ta'aala nabad baan u baahannahay seniorska waa la difaacaa oo sharciga qaanuunku waa difaacaa waxaa la difaacaa disabled persons waa dadka loo yaqaano protected class of citizens dadka sharcigu sida gaarka ah u difaaca Mareykanka dadka curyaamiinta ah ama maskaxda curyaanka ka ah ama xubnaha ka ah ama indhala ama dhagala ama lawala ama waa difaaca sharcigu wuxuu difaaca emotionally challenged individuals dadka maskaxda laga gumaysto dadka maartay yani ciilka iyo carada la baday dadka maartay lagu tuntay dadka xuquuqdooda inta laga dhacay laga inkiray sharcigu waa difaaca nin baa nin dhacaya dilaya geelisu dhacaya loodisu dhacaya arigisu dhacaya landheerana hebel gulay nin baa loo imaanaya dhirbaaxa lagala daalaya beerka laga garaacaya shan baa lagu tirinaya aabii hooyada hortiisa lagu dilaya halkaas marka sidii yaanyuurada saasiya gabar baa ninkeedii lagu hordilaya hadday afka kala qaadana baas baa afka looga tirinaya yani dadka marka qofkii marka waxaad arkaysaa dumar badan oo facebookyada ka qayraya oo le saasaa la ii galay sharcigu waa difaaca ama mid la kufsada ha aado ama mid la boobay ha aado ama dad la boobay ha aato ama dad la biro la qaystay ha aato ama dad beeroodii guryahoodii la qaatay war sharcigu qof kasta oo yani maskaxdiisa iyo caqligiisa inta la dhacay la boobay loo xoog sheegtay haddana emotionkiisa iyo dareenkiisa iyo damiirkiisa la dilayo sharcigu waa difaacay waa mayeeraanka dadka iska dhacayo oo la iska dilayo la iska boobayo Soomaaliya oo dhan marka dadkaas u badanta meeqa qof baa la dilay meeqa qof baa inta la dilay waalidkood hantidoodii la dhacay meeqa qof baa maartay ilaa hadda hantidoodii la haysta meeqa qof baa maartay dilay ku idmaayo maalin walba aabihii la dilaya ama hooyadii la dilaya ama la qaxinaya ama maartay magaalooyinkeena Soomaaliya oo dhan meeqa maartay gabar intalanba miskiin ah baa leeyahay yani waa wariye qabta dilay xira ninka kan waa wariye qabta ku tuura ninka kan wuu hadlay ku tuura yani dhirbaaxa lagala daalaya dadkii sharcigu marka waa difaacay dadka loo awood sheeganayo ama qofka inta la iska xirto sanado la iska haysanayo hadda waxa weeye waxyaalahan ka naxay waxa kamid ah kuma farxin in magaalada Boosaaso la weeraray hadday sayeshe erayadii 400 oo maxbuus waxa la yiri oo maxkamad sugayaal ah nacam in badan oo kamid argagixisa waa dhici karta inay yihiin saraakiil inay yihiin argagixisa laakiin haddana in badan oo aan case-koodi dhinac loo tuurin waxaan codsanayaa marka dadka xabsiyada laga buuxshay halka kan Mareykan 24 saac gudahood qofka maxkamad waa in la keeno dadka maxkamadaha ilaa iyo Muqdisho iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Burco iyo Caabud Waaq iyo Buuraxaawo iyo Garawe iyo Galkacyo iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo meel walba iyo Dhuusamareeb war dadkan maxkamadaha inta xabsiyada laga buuxiyo si arigii la iska xareysanayo maxkamada la keenaynin sharciga iyo qaanuunku iyo diinta islaamka waa difaacday dadka maxkamadaha la keeno qofku sharci wax ku cadiyiin hal ugu cadeeyo waa la shabaab ku cadeeyo lama cadda Soomaa sida waa la tuunsan yahay qofka kan Guantanamo Bay baa la iska xareysanaya waa khalad
marka sharcigu dadka uu sida gaarka u difaaca kamid caruurta children seniorska kamid disabled persons dadka curyaaminta maskaxda ama jirka emotionally challenged individuals dadka inta loo xog shigto cabsida la geliyay oo maaragtay aan isdifaaci karin sharcigu difaacay religion dadka diinta wadankan waa lagu difaaca anigu muslim baan ahay inka diintayda igu ceyrsanaya sharcigan maraykanka wuxuu qabaa in laga difaaco qofna diintiisa kuma ceyrsan kartid waa inaad marka dadka nabad gelisaan dadka Soomaali Kiristaanis sheegta oo inta soo fariista Ilaahay caayahaya oo Nabi Maxamed caayahaya oo Quraanka caayahaya oo diinta caayahaya xaq uma leedin waa in Facebookooda laga report gareeyo oo aad ka xirtaan hadii ay ku idmaayo taas sameeyo hadii ay ku idmaayo ayagana in waxooda laga caayo nooma banaana ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أنبياء أي عابدان النبي عيسى وجعلنا والنبي إلهي عبد الله ورسوله قال إني عبد الله نبي عيسى أدونك إلهي بانا هنرك يا صومالي فلا ورثوا الله يكسر سلحنا نكونوا فلا ورثوا قال هذا هو واحد لقنا حوي وحاكلوا الشرع وضن كان مريكا قال يا كلر تذكر مذبك لو عبريه أما هو مدو أما هو عدان أما هو جدود الشرع هو الدفاعي marka people of color sharci waa difaacay marka dadka madowga la iska tooganayo ayagana si gooniya sharcigu ilaaliya hadii ay gudnaan race qofka yaani qabiil lagu ceyrsado sharci waa difaacay marka nin maalan dheer u leeyahay dadku iska leeynaya qoryaan haystaa buu leeyahay ama hubban haystaa ama la sheebelad baan haystaa wallahi waa in dilayna waa in leeynayna no sharciga afka ka garaacaya qabiilka la dheeraha تانجيال قصدينية شرعية كتمانية دولتها كتمانيسة no one above the law عداني مدو ننكسر هي شرعية مجرم أما وايت سوبريزيوم ده أما بلاك رئيس ده عد شرعية كسرعية نسمى مجرته no مركا كلر كقفك الوع عبرنا يو أما قبيلك أما رئيسك هذا رجع عليه شرعية قفك مسكين قد دفاعية سيدو كله citizenship كله sharcigu dadka caynkaas midna ba violation uu sameeyay Trump oo yiri dadka dalka Mareykanka ah dad gooniya oo muslimiin ayaan u diiday waa sharci darro sharciga difaacaya dadkaas waa sharci darro shaqada dadka gooniya kama shaqeyn karaan wadanka u dhashay no marka waxa weeyaan war dadku sharci badan baa leeyihiin oo xuquuqda sharciga uu dalku u ilaaliyay marka waa inaad barataan hadii ay ku idmaayo veteran status waxa loo yaqaano waxa weeyaan waa dadka halyeeyada ah فيريا شرع أمريكا سجونية يا دتك هالجميالك الدفاعي هالجميالك سجوني الدفاعي هالجميالك إن أمريكا اندفاع عنه يا ووالي هيو وكان إيو ورا أنو هالجمانة هيو خل ضمن مسكين قال الله ده سمنا فارن هيو أدون هالجمات كاكلنا وهالجمي دولة ديننا وهالجميال يا ولاش الصومالية وحوق دلكنا وهالجميال دولة ديننا عند سنو دعاية رخيص بنت أن كدينا دلكنا دور شهر لا عادو سيستم لا يقانا هلا عادو هي حاكله ايربورك انا لودي علي مهدي بان wax ka soo dhaweyn lahayno nimankii musharaxiinta aba hubinay la galan airportka loo diiday waxaas waa ceeb meydka cali mahdi yaan wax ka soo dhaweynaya hubban la galaya waxaas waa ceeb qaalay qabuuraha imaada kaalay ku tukada janaaso la yidin ma diidin sheekh shariif waa taagna ma sha Allah madaxweynaha garabka isku haya yani ما شاء الله واتاقنا عبد حاش ما شاء الله مدحوينا قرب قسك قدوميه مرسل waxa kasta meydkii baa xataa la siyaasadeynay war ilaahay ka baqa marka waxa weyn walaalayaal dadka xoog dalka ee dalka u dagaalama sharcigu si gooni u ilaaliya halyeeyadeena qaranka iyana la ku dirin qabiil kasto ay yihiin haramcad gorgor nisa hadii ay ku idmaayo danab booliiskeena war ciidamadeena hadaan nala ka dacaayadeeyo ma ciidamada Uganda rabnaa war ma ciidamada Tanzania rabnaa war ma ciidamada Kenya anaga shakina loo ka gelinaya yana la ka gelinin oo si gooniya u ilaaliya dadka loo yaqaan protected class of citizens waana mid ugu dambaysa waan gabadhii baan warkeedu soo gudbaya genetic information dadka maaragtay jiinkooda ama genetic matalan ba aaba wuxuu dhalay ilmahaas cudur la iska qaado oo ilmo aabihi ka soo gudbaan oo ilmaha u gudbaan marka in la iska cirsado aabihiisa kansar qabay ama waa laga fiican yahay walaalayaal qof cudur haya in lagu cirsado oo lagu dilo
ولا ليال ما دينت الإسلامكو وحين فرت إلى أن حريصنا دتكاس أردن واردكي دتك جبوبي ضعفاء دتك مساكين والصوماليين نسقر منه يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء صومالي قول عايز كدينه صومالي ولا لنا إيه البنا سكينا صومالي قبيل يبان ينين قال كل انتكسر رجال كان يدين سوفرستا ضرب بلايا دعدي ورا حساسي وحبا يدين تلميسو نبات بان أبهنا دقال سكيا مربنا 2001 منا دقال مربنا ولا لمي عدالة إن الله يأمر بالعدل إلهي عدالة نفري حرمينا دلكينا دولة نمدينا دعاية الرخيص كابينتا بالتوجير مالا كلام هاوس فيسبوك تويتر ماسنجر ويب سايت حبايد انت رميسه إلهي كعب صدر إن هذا السفر بانا هاي وحنوصل على قبل كله وقبر أيضا نستوكل إن أدينا يكود مايو بان أصعدا أيضا ننكي يدو أدينا يكود مايو أدينا يكود مايو أي كلا تجينا إلما عرورنا هذا الشيء إلى شرع إن مرك أمل لحة إن أدينا يكود مايو وحويان السفر بانجليه إلهي نايق أجرسيو إن ولا ليالو مرك حويان هلا سجور مدو إن قبل الشرع أن قيلني نواقني بوليس كلا ضدني أمدي جاريدي أن أدينا يكود مايو نواقني إذنكو أشر جريسين لا إذنك أجرسيو أمل والبعد جارسين وركي سدك دقو كفافي الله يركي بصباحي هاي دي بصباحي جناستي بصباحي جاريدي بصباحي كلين بمرتي صباحي فيري محاكا دعي وحا دعي دلك كان ددك حكومة حلو يغنى we the people شعبك سقالين صومالية اسبارو ما ديقا كرتو دورشو ما ديدي كران نبدا ما ديدي كران هورمركا ما ديدي كران على كعبسك ما ديدي كران وعلوشي ما ديدي كران نين قدوميو قبلا ديدي إنيو ما ديدي كران والله ما ديدي كران وانا لصحيح هيا كل قدنا وإيمانيان وراقينا وسو قارس اولريدي ولا صحيح واسكا وحنا مسكا فورمولا نين ديدي كران المر نين كي ديدنا سبويلر وقصوده دورشا الآدية مقلس عيدنك حوق دلكنه waxay xaq u leeyihiin iyo dawladdu amniga inay ilaaliyaan meeshii xabad qush ka tiraado meeshii nin maafiya oo xabad ridaya in la qabto waajib weeye in dalka la ilaaliyo waajib weeye laakiin yaan dooranaa qof walba ninka adigu u codeynaysid sanduuq ugu rid walaalow Soomaaliya ina adeerow tolow walaalow kaalay laakiin dalkan gubaynaa no ciidanka xooga dalka ha ilaaliyeen hana la ilaaliyo madaxdeennana xurman wayna waa astaan qaran 15 bisha يا شن يتبانك بيش محكمة دي بدأ إنه طالع بدأ إننا أنو دقالنا ينال كمشغولين سلام ما أنت شركة فرمية أو الصومالي ده نه وعشان يتبانك يعني دولة ده بدأ كولا ناكياتي نكان جيمس بوند هوست وقول شيء يعني لما كان قبل هذا هالك جاري واحد جارسي جارسي حالنا لقى جارسي بيش عالم كجارسي يوروب جارسي وأنا كان دولة يوروب جارسي هالكاس ده كنا عندي دفاع عنه يوروب ملهن أمريكا ملهن عدكلا ملهن أنا قاله ما قليسان ذلك عندي سنة دولتنا نتقرن أما يان دورنا ولا ليالو دور شهل هذا نبكر هلا تشوشيو دعاية بين ترخيص كره هلا تشوشيو إلهنا هلا قبقو دمر كي عيال كي دلان واضح يعني رب العالمين هلا قبقو أنا وقربوا وقض يعني وضيال وكل عيال سوق ما كنا قلنا دمر هشاجن مسؤولية ما جرتو نوال بقى بدأ علوش أبو حنا هي مركزو ما بيقان نبأ وحوي وحن مغلي قبر داليرو شالي مركان عجلده aan duubaynay meeshii la sugu yimid waxay leedahay anigu geedkii sharoota baan ku xirtay ba maba u socday tir guuriga aragana carruur ku dhalmaya tir waa tala fiican way taasuna haddaan wax mas'uul u sajirin oo carruurta kala korsanaya oo carruurta kala warqabaya oo ilaahay kala baqaya waa xaraam carruurta inaad halkan ku dhishid markaas Soomaaliya ku dhal adigu nin ragada tahay gabar mas'uul ah dad guursanaynin oo ilaahay ka baqaysa شهوة إلى الصو صومالي كسودال حق جيبياك دينا يقول ماي حمدة وحين وقبها أنت جرمد حمدة محمد حاج السعيد وغير بوصاصة جرمد بين وقبها أنت وحات فرتان حوالة ده مقعد الصقر مقالة كولومبوس أو هاي موالنا حبض مقبط وقبر أموله خاطر بدن بقى صوعي خاطر تصوح أي شيء أموله عذر كل عاجره oo isla buuqaan umulow waa Soomaali lagu dhahawan maleynaya umulow idinka yaqaana gabadhu xanaana meelin cid umul bixisa meelin ehel iyo qaraabo ka naxaysa meelin runta tan sheegay ehelka banaanka soo dhigay booliskana wacay nacam
hadday isku buuqday ilmahana duruuf baa ka muuqatay ogow soomaali baa u wacay qurbihii soomaali baa kugu xiraya ka kula dhashaa ku xiraya wadaadka booliska kugu wacay masaajidka kugu wacay waxaan leeyahay ilaahay laga boqo ummaddu ha istaagto gabadha marka magaceeda waxaa la dhahaa aniga dad badan baa isoo wacay haddaan socdaa gobol kalaan u socdaa wallaahi anigu inaan been idiin sheegin haddaan socdaa lacagna anugu ma qabanaynin laakiin magaceeda ku soo qor xamda maxamed axmed xaaji saciid gabadha ku dhiban magaalada columbus gobolka ohio nacam looyarka ismaaciil oo kale gudoomiyaha jaaliyadda oo kale xasan cumar dhammaantood khayr allah siiyo dadka ehelka ah nacam lacagtaas loo aruurinayo in meel ammaano ay gasho oo gabadhii laftigeedii gabadhii xalay gabdha Soomaaliyeed baa qaaday guri baa la geeyay fiican in loo qubeeyay baan aaminsanahay in dharkii laga bedelay in gabadha niyadda loo dhiso dahab loo xiro loo labiso loo xiniyeeyo niyadda loo dhiso ilmaheedii ay aragto ilmihii waxa lagu wareejiyay walaasheed baa lagu wareejiyay walow khalad ay ahayd marka horeba ehelku inay gabadha guriga saaraan laakiin habaryarteed baa lagu wareejiyay habaryartu marka waa hooyo nabi maxamed ciidi alayhi salatu wasalaam al khalatu bi manzilati al habaryartu waa hooyo marka taas waa inoo guul kulligeen alxamdulillaah andhaano habaryarteed baa gabadhii saqiirka ahayd gacanta ku haysa gabadhii waa la soo badbaadiyey ma hubo gabadhu ilmaha aabbaha dhalay anugu ma hubo cid uu Soomaali ka yahay laakiin nin iska leh youtuber ah oo iga soo wacay Minnesota iga soo wacay oo aan jeclahay isla beesha ma jirteen inuu yahay oo ehelka iyo tolkayga ah wuxuu ii sheegay aabbaha ilmaha dhalay inuu ogaadeen yahay inuu ii sheegan jeclahay marka gabdha ogaadeen waxa soo wacay wayba ilmeeyeen waxay dheheenba allah inantanadii bay dheheen marka waxay dheheen waa gabadhaas waa garab istaagaynaa bay dhahayn marka qabiil gooniya maaha ama hooyada dhashay haato ama aniga haato oo ah miskiinka alle oo ah ninka matala gabadha oo aabaheed oo kala ah oo ah walaalkeed oo kala ah waxaan leenahay marka walaalayaal qabiil maaha anagu qabiil ma naqaano laakiin kaliya waxaan inkugu sheegay litaarafu sababto dad badan baa ii soo qoray waaya gabadho yaa dhalay ninku yuu yahay taleefankii waa qarxay waxaan hadda arkayay walaalkay kabtan ayuub soo wacay khayr allah ku siiyo jazakallahu khayr walaalkay waa hadli doonaa insha allah inkastoo safarna aan ahay walaakiin waan ku soo wacaya insha allah marka walaalayaal khayr allah idin siiyo ha loo gurmado xamda waxay u baahan tahay guri inaan u gadno ilmaheeda laga qaadanayo gabadha guri waa u gadi karnaa guri aan u gadno hooyooyinka kale ee Soomaaliyeed ee shanta qaaradood ku dhibanne hooyada iyo dhallaanka in loo gurmado rag Soomaaliyeed baa soo qaxiyay ilaa haddana nabad u diidan isu gurmada culimada waxaan ka leeyahay si gaar ah ilaahay ka baqa walaalayaalow memberkii idinka haysta nabi maxamed iyo alayhi salaam idinka fadhiya walaalayaalow lacagtii Soomaali jeebkiina ay ku jirtaa meel kale ma jirto xawaalada ninka haysta waa wadaad shirkadda weyn ninka haysta waa wadaad dahabshiil iyo hormuud iyo albaraka iyo taaj iyo wax haysta waa wadaad walaalayaalow meel walba aad joogtaan ilaa iyo gedoona abaar baa loogu baaba'aya warda lacagtaan waad ka dhimanaysaan ilaahay ka baqa masaajidyada lacagta lagu aruuriyay idinka jooga barnaamij hooyooyinka iyo